waxaa habboon inaad ku dhimato adigoo runta sheegaya muxuu ahaa waxaa laga maarmaan ah maxay ahayto walilxaq walow kaana muran waxaad ku qowshaan oo tidhahdaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa yidhi walilxaq ku dhaha ku qowla xaqa xitaa haddii kharaar maxay ahayto walilxaq walow kaana muran haddii xitaa ay doodo imaanayso waxay la tahay adeeradii halkan ay ku jiraan godobta ka galay qarankii soomaaliyeed ee dalkii burburiyey ee sababta u ah maanta inaan halkan goobjoog ka noqono ee raba in maankeenna caqligeenna xoolaheenna iyo ubadkeennuba ay duurka galaan kama tegin kuwa naloo tiriyo maogtahay waxaan dooranay maaha inaan muslimiin ahaano inaan afrikaan ahaano inaan bariga afrika degno inaan soomaali ahaano ama bari ka imo ama waqooyi ka imo ama kaaran ka imo ama daynila ka imo ama kismaayo ka imo ama baynaba ka imo doorashadeennu ma ahayn sidaas ilaahay baa naga soo saar waa aqbalayna laakiin haddana inaan wax isugu geysano isku dilnaa gabal ma aha soo saas maaha waxaan rajaynayaa qabaa'ilka soomaalida oo dhami halkaas ayay kuwoodii ka qayb galay ama u ahaa madaxda u ahaa horjoogayaasha u ahaa in la burburiyo qarannimadii soomaaliya bay ku qoran yihiin ciddii godobka gasha dalkiisa ka gala ilaahay wuxuu ka keenayaa calaamad aadanaha intiisa kale uusan qabin hadduusan adduunyada ku arkinna waxaad arkaysaan markhaatiyaha anuha iyo sunta soomaaliya lagu shubay ka sokow waa usoo noqonaynaa sawir aada u foolxumo badan halkan waxaa ku jira goobaha laga qaado sunta lagu shubay soomaaliya haamihii lagu qaaday nin ka mid ah burcadda caalamiga ah dhalashadiisu ay tahay talyaani goobaha lagu aasay sunta iyo nin adeerkaya oo saxiixiisa ah sunta lagu shubay soomaaliya waxaa ku xiga beyj runtii aad iyo aada u xanuun badan noocyada xanuunada ku cusub soomaaliya ee aanan weligeen maqal ee aanan weligeen arag ee qaramada midoobay iyo laamaha waxbaara ay soo bandhigeen halkan idinkugu jiraan ciddii doonaysaa inay aragto ama markhaatiya ka noqoto godobtii laga galay qarankii soomaaliyeed dadka soomaaliyeed laga galay dhulkiisii laga galay waad arki kartaa waxaan hadalkayga kusoo gabagabaynayaa wiilasha yaryar ee imaanka looga qaaday midbaa u imanaya barakabeelo ah oo qabiilka baashtuunka la yidhaahdo ee ka yimaada afghanistaan dadka ay wataan ee gorgoradaha ah ee dhaqankoodu yahay raba dadka soomaaliyeed khasab in ugu geliyo diin ma aha waxa soomaaliya maanta looga dagaalamayo mitaal waxaa kuugu filan arrin naxdin leh oo shalay dhacday magaalada muqdisho ka dhacday wasiirkii wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda hadda jirta ee dadkeeda xasiloonida u deedaysa dagaalkan kula jirta kooxaha maryaha soo gashaday ee ka been sheegaya islaamka ka been sheegaya ee qur-aanka ka been sheegaya qofku waxaa lagu rumayn karaa saddex xaaladood middood baa lagu rumayn karaa waxaa lagu rumayn karaa qaala allahu subxaanahu watacaala iyo qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam labadaas waxaan ahayn hadduu kula yimaado waa inuu kula yimaadaa heshiis aniga iyo aan wada gallayn walaalkay oo qoraya qodobada soo socda qodobka koowaad wuxuu qorayaa sidaas waxaan taasi ahayn wax la qaatahay malaha macnaha ilaa heer la gaaro gabar ardayada oo dhowr iyo 10 jir ah adeerkeed aabaheed la dhashay isagoo aan waxba galabsanin bam intay feeraha saas usoo gashatay adeerkeed aabaheed la dishaa inay disho iyadoo aaminsan adeerkeed inay janno ku tegayso adeerkeed uusan islaam ahayn waxaad ii sheegaysaan foolxumadaas iyo dhagartaas meesha laga keeno xagee laga keeno waana la haystaa ciddii og iyo ciddii aan ogeyn waxa loo dagaalamayaa diin ma aha waxaan haysta burcad caalami ah ha ahaadeen kuwa islaamka ka been sheegaya ha ahaadeen kuwa sunta soomaaliya ku shubaya ha ahaadeen kuwa raba inayna kala haystaan oo nagu kala haystaan adigu haddaanan ninkaas kaa horjooga waa ku dili lahaa ma ogtahay waa beentood din ku dilayaa ma jiro xaq baad dalka ku leedahay dalka waxaa jira diritay dobeere wax la dhaho xuquuqo qofka uu leeyahay iyo waajibaad gudashadiisa qofka lagu leeyahay qofku marka uu garto xuquuqda isagu uu leeyahay waxaa lagama maarmaana inuu isagu fahmo waajibaadka lagu leeyahay gudashadooda ama laga sugaa khasab maaha anigu inaan dowladda soomaaliya ay yeelataa ka qayb galo khasab maaha reerkaygu nin ka tirsan inuu madaxweyne soomaaliya ka noqdo khasab maaha reerkaygu nin ka tirsan inuu ra-iisul wasaare noqdo aniga halkanaan joogaa idinkaan maanta idinla joogaa waxaan waa aaminsanahay waa isoo dhaweeyeen dalkaygii labaad waaye waxaa laygu leeyahay xaqa inaan ka qayb galo inaan difaaco xaq ma aha inaan isaga kasoo horjeesto ubadka ka laayo carruurta ka laayo oo idhaahdo waa gaal
islaamku gaalka xitaa lama dulmin karo gaalka hadduusan cirligaaga diintaada iyo sharaftaada kugu soo horjoogin lama dulmin kara xitaa gaalka haddaad run sheegaysaan oo kuwa dhagarta iyo beenta iyo maryaha idiin bedeshay ee raba xarumaha iyo goobaha dadku isugu yimaadaan inay albaabka hore intay idiin istaagaan dhahaan oo diidaan oo dhahaan lama geli karo halkaan waa beentood waxay iska daayeen arumaadka iyo canshuuraha laga qaado kuwa jirkooda iibsada bay wax ka cunaan waa beentood haweenkooda kuma sheegna waa beentood waa kuwaan moogtaha qof waxaa la rabaa caqligiisa moogtaha inuu kaashado waxaa la rabaa waa beentood iyagaa haweenkoodii ka cararaya iyagaan caruurtoodii inkiraya adigii buu ku leeyahay ittaqillaha xaqiiba taqaan halkaasuu joogkuysta isagumaa ilaahay ka xishood isagumaa ilaahay ka cabsado qofka rabaa inuu wanaag falo naftiisa ka bilaabo qofka rabaa inuu isbedel sameeyo naftiisa ka bilaabo oo dadkiisa u sheego anigu xaq ma aha ogow qofkii qof dila fakaannamaa qatala naasa jamiican waman axyaaha fakaannamaa axyaa naasa jamiican qofkii qof dila hadda waxaad arkaysaan anigu 9 habeen ilaahay iga sarreeyaan ku dhaaftay ma seexanin waxaan ka seexan waayey nin intay gowraceen madaxa ka gooyeen dhabarka madaxa u saarayeen ku cayaarayeen sidii xoolaha loo qalaayo ilaahay baan kugu dhaariyey ilaahay miyayna ka xishoonayn kuwaas ilaahay miyay ka xishoonayaan kuwaas nin damiir leh oo ilaahay ka xishoonaya saas ma yeelo anigu hadalkaan ku dheereeyey waxaan ammaan iyo mahad ballaaran runtii u celinayaa waalidiinta soomaalida ah dhalinyarada soomaalida ah iyo ubadkooda ee kusoo qayb galay aanna siiyey fursadan waxaan rajeynayaa waxaa idinla dardaarmi doono oo kollay wixiga waayeelkii falaalada soomaaliya anugu qaangaar maahi waxaan u jeedaa 10kii sannadood ee u dambeysaan daacad galay laakiin 20kii sannadood ee burburka lagu jiray baan raadinayay inaan gafafkii xagga taariikhda ahaa ee la gelin dib loogu noqon waxaan ka been sheegaya ma aha dhacdooyin laga xishoodaa Soomaaliya ka dhacay Soomaalida waxay noqdeen xumo kastoo la tilmaamayo kuwa mitaalka loo soo qaato yaa kuwa saaxiibada la dhahan marayna maanta muqdishaan goobjoog ka ahaa bari dhaweyto aan dood ka qayb galay telefishinka waxaan dadka Soomaalida u sheegay aniga adeerkaygu ahaa kuwii dadkii magaalada ku haray madaxweyne ku-xigeen muddo dheer Soomaaliya ka ahaa dadkii la qabtay kuwa jirin wuxuu ku jiray dadkii fursadda u helay in si madax bannaan oo xorriya ay dadku ula hadlaan maxaa ka kale Soomaaliga ah Cabdalla Maxamed Faadil sarreeyadaas major general buu ahaa 10 casho ka badan buu meydkiisu bannaanka yaallay maxaa loo dilay cali samatarka beenta hadda loo haystay la dacweynayo waxaa la rabaa taariikhda inaad dib ugu noqotaan madaxweyne ku-xigeen hadduu ahaa aniga isaga anigu waxaan ka mid ahaa waaxdii barbaarinta wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya dhalinyaraan ahaa inta aan fursad u helay inaan madax arko oo la kulmo nin afgaaban buu ahaa calisan dadka iskama sarraysiin jirin nin afgaaban buu ahaa maanta maxaa loo eryanayaa muraadka laga leeyahay maxay tahay in calisanta dacwad loo haysto maanta ama loo qabsado xuseen kulmiye waa dhintay markii uu dhintay adeerkay uu ahaa lacagtii lagu dugay magaca ilaahay baan ku dhaafay aniga ninka gatay guriga maxay ahayto anigaa qaaday oo geeyey reerkiisu ma haysanin lacag ay ku dugaan cali santar guri uu leeyahay magaalada muqdisho kuma yaala ama Soomaaliya guud ahaan maxamed siyaad barxan sidoo kale kuwa maalmaha dhow inta jooga ee jooga lacagta la ee waa ka warqabtaan bay la tahay kuwa in cadaaladda la mariyaa ay tahay waa kuwa maanta jooga ee burcadda ah ee dalka aan nabadda u doonaynin rabaha inaan meelaha joogno kuwii sharafta iyo gobonnimada iyo maalmihii guddoonka quruxda badnaa Soomaalidu ay haysatayna waa kuwa hadda la haysto maryaha la haysto leeyahay waa la dacweynaa maxaa loo dacweynayaa laga rabaa midka kale waa ka xumahay ma haysto emailkayga waxaan tusin lahaa warqad markhaatiya ah oo aan u diray xarunta cadaaladda iyo accountability-ga la xisaabtanka Mareykanka codsi ay ii jeediyeen oo ahaa inaan ka qayb galay dacwadda loo haysto saraakiil Soomaali ah waxaan u sheegay inaan maanka dareenka dadka Soomaalida ah iyo maskaxdooda marna aynan ka guuri doonin kaalintii waxtarka lahayd ee saraakiishaas ay ka galeen difaaca qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan idinka rabaa inaanan ku difaacin ninka xun inaan la taageerin hadduu aabbaha yahay gacanta ka qabo hadduu walaalkaa yahay gacanta ka qabo hooyadaa hadday tahay dambiilo tahay gacanta ka qabo ugii cadaaladda maxaa jira waxaad garanaysaa in ku dhow 1 milyan oo ruux inay ku dhimatay Rwanda dibashisiinta maanta ka jirta waxaa lagu gaaray kuwii dambiilayaasha ahaa wiilba aabbaa wuxuu geeyey wiilkiisa inuu ka qayb galay shidadaas
walaal wadaadada u diray ciyaalkiina u diraya inay isqarxiyaan u diray isaga naftiisu hadii waxa loo cararayaaba ay janno yihiin ma adduunyo ka rabaa ma isaga jannada aad waxaan idin soo dardaarmayaa hadalkiisii dambe khiyaarta idinla dardaarmi doonto waa mahadsantihiin ilaahay ha idinka raali noqdo waxaan idin jeedinayaa mahad iyo amaan ballaaran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.